sharaf ii ah maantayto intaan oo ah dadkii labeenta u ahaa ama saraakiisha u ahaa gobolka mudug labada dhinac inaan isugu nimaadno xafladan cashada ah waqti aan ku wada qaadano isweydaarsano xogaha ka jira deegaanka sharaf ay ii tahay gaar ahaan General Gorod oo ah aasaasihii nabadda goboladan mudug galmudug iyo puntland iyo isdhexgalka bulshada xilligii uu joogayna waxa weeye taariikhda ay u gashay shaqadii uu qabtay inay miro dhashay waxaana xaqiiqa shaqadaasi inay tahay mid miro dhashay oo nabadeyntii bariga iyo dhinacan koonfurta isdhexgalka iyo shirarkii joogtada ahaa oo la qaban jiray ay miro dhaleen laakiin waxaa dhiman shirkii galbeedka ahaa oo loogu talagalay in lagu qabto buurtille baan filayaa inuu haray isaguna insha allahu tacaala waa inoo qabsoomi doonaa intaa dabadeed maantayto deegaankeenna waxaa ka jira labadaa shay oo waagii hore soomaalida jirtay waa ka ducaysan jirta ma aqaan hadda in laga ducaysiin kare col iyo abaar dadku waa ka ducaysan jiray colkii iyo abaarkiiba waa jiraan colkii oo laba noocoo marra gudaheenna ah oo laga faa'iidaysanayo marra gacan dibadda ah oo haddii ilaahay kuu roon yahay labeentii iyo culimmadii iyo caabudkii iyo taqigii aan kala soocayn oo ugu tegaya guryahooda iyo masaajiddii raggii deeqsiga ahaayoo sakhiga ahaayoo samafalayaasha ahaayoo birmageydada ahaa baa lagu laynayaa waa col joogto ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu colkaasna naga qabto innagana quluubteenna mid ka dhigo oo dadkaan baqaaya ilaahay baqdinta uu ka saaro colka gudaheennaana si wada jir ah inaynu uga hortagno oo dadkaan la isku dhufanayo bugcad 20 mitir oo nin leeyahay oo haddaad caawinta u timaaddaa tiraahdaysii 5 mitir uusan ku ogolayn buu wuxuu rabaa inaad adiguna u dhimatid ninna ku dishid buu rabaa hadda dhulkiisana asaga iskale ratigiisu ku kacsanayaa tollaayay buu oranayaa waa loo soo gurmanayaa waxaa ku dhimanaysa 20 nin bugcaddaasi ninna lama lahan cid inuu wax ka siiyana ma rabo wuxuuna ku difaacanayaa nidaam qabali ah dadku inay baraarugaan oo ay ka baraarugaan dhibaatada intaa la eg oo haddii ilaahay kuu roon yahay mushkiladda ah baa loo baahan yahay ayadana abaartana ilaahay baa keenay inaynu ilaahay barino ilaahay u noqonno cuquubada dhiigga bini aadamka oo la daadiyo cuquubooyin baa ka xasila cuquubadu hadday timaadana dadkao dhan waa camimaysaa waxyaabaha colaadda keenaya waxaa ka mida marka colaaddu ay keenaysa waxaa ka mida abaarta aynu isnabadgelinno aan iscafino aan wada noolaanno aan wada shaqaysanno intaasi qofaysan faa'iido u ahayn lama arko nabad in lagu noolaado intaa markay ka soo harto reer baa waxaa la yidhi guuray oo geedi galay reerkii hadduu guuray oday xoogaa jilicsanaayo da ahaabaa gaabiyey xoogaa marka gabar baa ku hortimid oo gabadhii wuxuu ku yidhi reerkii aan la socday waa iga tageene reerkii maaragtay mase gaari karaa waxay tidhi 3 warxaad oo kaa laalaada haddaad kor u laalatay reerkii waa gaari kartaa bay ku tiri marka reer mudugga waxaan leeyahay 3 waxyaabood baa inaga laalaado dhibaatada dhexdeenna ahi waa laalaad ee aan ka baxno oo dilkan joogtada ah ama geelaan la iska dhacahayo ama bugcadahan la isku laynahayo waa mushkiladaha inala haray oo haddaynu ka baxno waxa weeye waxaan u gudbaynaa barwaaqo iyo nabad colkaan ina laynahayo oo joogtada ahaa oo kooxahan argagixisada haddaynu kor isaga laalana iyadana waynu gaaraynaa haddaan ilaahay barino oo abaarta aan ka baxnana waa gaaraynaa marka 3daas reer mudug waxaan leeyahay waa inaga laalaadaa 3 inaga laalaadaa aan kor u laalanno
walaalkay gudoomiyaha maxkamadda wuxuu sheegay in xoogaa wax jirjiraan. waxaa la yidhi Soomaalidu waxay ku maamaadaa lugaha arigo labana waa xoqosho labana waa qodosho. sharcigeena idinkaa gacanta ku haya, fulintiina annaga gacanta ku hayne, soo xukuma annagu waa fulinaynaa, ballan weeye. ayadana taasaan ka leeyahay. ninka dhulkiisu ku yaallo dhinacaas oo la dhisto ama laga boobo, haddii la dhisayna anigu haddeeraan duminaya ha la ii soo sheego. ninna uga haybaysan mayo, ninnana uga baqi mayo. nin hantidiis Soomaaliyeed oo mas-uuliyadda aniga ilaahay qiyaamaha ay weydiinayo aniga cadaab ku mudan mayo. dadkaan isdhexgalkiisa iyo nabaddiisana wax waxyeelaynaya raalli ku noqon maya intaan mas-uuliyadda hayo. aniga ha la ii soo gudbiyo, anaa ka qaadaya. sidaan habeenkii dhowdu sheegay aan idhi ninkii reer galmuduga oo wax ka maqan yihiin oo aniga imo, ninkii reer Puntland wax ka maqan yihiin ayay imo, waa ku celcelinayaa mas-uuliyaddaas. markaan sidaa leeyahay, Bukhaari waxaan u qabaa ama ay tahayba isku shaqsi inaan nahay. geelayagii baa wada daaqaya, carruurtayadii baa wada ciyaaraysa, dugsi quraan bay wada dhigtaan, iskool bay wada dhigtaan. yacni ma kala maarano. mar haddii aanan kala maarminna waxa weeye inaan danaha iyaga u qunno oo si sharaf leh oo walaaltinimo leh oo geesinimo leh aan hawsheeda u gudanno waajibaadkana saaran. kolley in yar baan joogaynaa, intaan joogayna ilaahay baa yaqaana, ama aan dunida korkeeda ku noolaanayne inaannu waajibaadkaiyaga ka gudanno. waa isku afgarannay. maamulada degmaduna sidoo kale weeye, waa isku xirannahay. ninkii uu qabaa in aanu laba maamul nahay ha ogaada inaan hal maamul nahay. intaa waxaa dheer oo aan ku darayaa, xafladdan aan ku maamuusay odayaasha iyo saraakiisha iyo madaxda iyo dadka shacabka ah ama dhallinyaro ha ahaadeen ama salaadiin ha ahaadeene, waxaan uga jeeday inaan xaggeega ku qabto. waxaa igala qurux badnaatay halkaan inaan ku qabta laba shayba. labadaa shay waxay yihiin in magaaladu isku mid tahay, masawir ah inuu muuqdo oo meel kasta laga soo shaahayn karo, xagga la tegi karo, xaggana la tegi karo. xaqiiqatan markaan dhinacaan soo aadayo anugu kama baqo galmudug. meesha ciidankeedu joogaan soo aadaa, weligeena soo aadi jira. laakiin hal shay baan ka baqaaya, waxaa weeye balada xaggaan uga baqaan, xaggaana uga baqaa. wax kaloo aan ka baqaayo ma jiraan. balada haddaan iska saarra marka oo aynu dhinac uga soo wada jeesanno, insha allahu inaan la baqin baa imaanaysa. dadka intooda badanna waxay ka baqaan waa intaas.